Soomaaliya iyo Kenya derisnimo dagaal iyo dood Kenya iyo Soomaaliya laba dal oo deris ah balse xiriirkooda mar walba ma ahayn mid fudud waxaa jirta taariikh dheer oo iskugu dhex jirta isfahan ismaandhaaf iyo xataa dagaal balse sidoo kale ganacsi qoys iyo xuduudo la wadaago taariikh hore gumeysi iyo kala qaybsanaan gumaysigii Ingiriiska iyo Talyaanigu wuxuu u kala qaybiyay dhulka Soomaaliyeed si aan cadaalad ahayn NFD dhulka ay Soomaalidu degto waxaa lagu daray Kenya 1963 markii Kenya xornimada qaadatay Soomaalida gobolkaas waxay doonayeen inay la midoobaan Soomaaliya waxaase dhacay dagaal xiriirka diblomaasiyadeed waqtiga dhexe sanadihii 80 iyo 90 xiriirku wuxuu ahaa mid qabow laakiin diblomaasiyad ayaa mararka qaar jirtay xilliga burburkii Soomaaliya Kenya waxay martigelisay qaxooti badan taasi waxay bedeshay labada bulsho iyo siyaasadda gobolka badda iyo muranka xuduudda markii laga soo gudbay sanadaha adag muran cusub ayaa yimid oo ku saabsan badda Soomaaliya waxay dacweysay Kenya ICJ hortiisa ayadoo sheeganayso in Kenya ay si sharci darro ah uga faa'iideysanayso badda Soomaaliya dadka labada dhinac laakiin la iloobin shacabka Kenya waxay martigeliyeen Soomaali malaayiin gaaraya ganacsi shaqo tacliin qoys xiriir shacabka ka dhaxeeya waa mid ka xoog badan siyaasadda waqtigan casriga ah madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta xiriirkooda wuxuu ahaa mid iskhilaafsan xilliyo xuduud la xidhay diyaarado laga celiyay iyo saraakiil la eriyay laakiin doorasho kasta waxay keentaa isbeddel cusub madaxweynaha Kenya Ruto wuxuu rajaynayaa in xiriir ka wanaagsan uu dhisi doono kuwii hore mustaqbal rajo iyo dhalinyaro ma isfahan baa imaan kara haa haddii la dhegaysto shacabka derisnimada looma dooran balse waxbay dhisi kartaa haddii laga fogaado muranka xuduud ayaan wadaagnaa laakiin siyaasadda la iskuma waafaqin haddii taariikhda ay ahayd muran mustaqbalku ha noqdo iskaashi